waa mahadsantahay cabdullaahi. Idinka dhammaan waa mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo barnaamijka laga dhawaajiyey ahaa in loo sameeyo nashaqaad jaaliyadda. Jaaliyadda hadda hooyooyinka ma oga, laakiin dhalinyarada waxaan wartaa barnaamij olole ah oo aan ku sameynayno maxaa la sheeg doora oo ah yani maxaa la sheeg in had group la sameeyo laftirkeeda xatee dowladdaas waxaan la heshiinayo inta iyo hilaal axmarka ah ayaga dowladooyinkaas noo qabanayo dhowr nooc ay ka kooban tahay. Waxay rabaan habla iyo inamaba in la isugu daro. Waxay bari doonaan harqaamanka, waxay bari doonaan koofeerada, waxay bari doonaan farsamooyinka gacanta, waxay bari doonaan maxaa la sheeg wixii maslaxadda markaas. Hawshaasna way socotaa. Beritoona waxaan ku balansanahay inay meesha yimaadaan ay ku sameeyaan kormeer wixii markaas naaqaska ah jaaliyadda inay nagu soo kordhiyaan, hadday qalab ahaan lahayd, hadday wax kale ahaan lahaydba. Hawshaas waa wadnaa. Waxaan rabnaa inaan ku darno hadduu ilaahay yiraahdo marka doorka hooyooyinka in ayagana door aan siino, ileen ayaga maanta isogay inay iska soo saaraan qof mataqaanaa xiriir toos ah sameeyaan oo isku xirmaan. Inkastoo hadda guruubo ay leeyihiin laftirkooda wixii markaas soo kordha isku gaarsiiyaan guruubada. Maalin ay qabsadaan ayaga ay firaaqo leeyihiin ay yiraahdaan maalintaas aan u baahanahay jaaliyadana la siiyo. Maalintaasna waan siin doonaa iyo maalmo u baahan yihiinba waana kala soo qaybgeli doonaa wixii markaas caawin ah ama fikri nooga baahan yihiinna kulli waa kusoo siyaadin doonaa. Laakiin wixii nashaataad ah ay markaas ay baahi weyn u qabaan inay ayaga markaas kasoo gudbiyaan.